waxaana kan isugu yimid waxa weeye qandaraaskii ciidamada raashinkooda iyo waxa la xiriira in maanta la furo waxay tani ka turjumaysaa waxa weeye habka daahfurnaanta ee runtii dalkan ku talaabsaday adduunyadii kale baa halkan inagala socota systemkii loogu talagalay ee shuruucdeena ahayd ayaynu hirgelinaynaa dhaxal gelinaynaa marka waxaynu isugu nimi inaynu isla wada ogaano ayadoo daahfuran dadka uu DG-gu inoo sheegay director-ku inoo sheegay agaasigu inoo sheegay ee soo dalbaday ee Soomaaliyeed inay sarxaddu u siman tahay in la wada ogaado ayaynu halkan isugu nimi wasiiradu nala ogaadaan mas'uulka ka qaybaha kala duwan ee ciidamada qaybaha kala duwan nala ogaadaan dadka Soomaaliyeed halkan inagala ogaado ciidanka waa cududda aan haysano waa xoogga aan haysano waa garabka aan haysano waxa weeye waa ayaga ugu mudan in la daryeelo ayaga ugu mudan heer walba yihiin ciidamada heer walba yihiin ciidamada qalabka sida nooc kasta yihiin ayaga ugu mudan in la daryeelo ayaga ugu mudan in wax taysan la siiyo ayaga ugu mudan dhaqaalaha badan in lagu bixiyo karaamada iyo sharafta ugu badan ayaga iskale maadaama qandaraas in la furahayo maan kambaniyashii soo tartamay waxaan u rajaynayaa company ugu wanaagsan ugu wadanisan ugu niyi wanaagsan oo in ciidamada qalabka sida garab istaaga rabo company-gaasaan ilaahay ka barinayna horta inuu ku guuleeyo qarannimo ku jirto dowladnimo ku jirto annaga ka wasiir ahaan iyo dhammaan inta dowladda ah sida aan u soo bandhignay oo aan liis u soo saarnay ayay nooga tahay in qofku xaqiisa ku helo oo wax meel mugdi ah la gashtay oo meel mugdi ah lagu la dhuuntay aysan u noqonin waa bogaadinayaa bahda wasaaradda maaliyadda oo waqti badan gelisay hawshan waa dib u habeynta iyo dib u qaabeynta ciidanka oo raashinkoodii aynu hadda maanta halkaan u fadhino sida aynu istixgelin iyo mudnaan u siin lahayn iyo wasaaradda maaliyadda oo wasiirada iyo howlwadeenada runtii iyaguna shaqo aad iyo aad muhiim u qabteen oo ahayd iyadana daahfurnaanta dhaqaalaha dalka iyo siduu u baxo marka mashruucan uu labadii dhinacba ciidankii iyo maaliyaddii oo aan xoog badan gelin 4 sano ugu dambeysay labadiiba waa kulansaday